magacayga Aamin Maxamed aa la dhahaa labada cunug aa haysta aabahoodana waxa uu ku dhintay qaraxii X aan ku dhintay haddana wax oo dad oo ilmaha waa hooyada laba caruur oo aad u yar isla markaana uur leh saygeeda wuxuu sababsaday qaraxii X control kaasi oo dad fara badan oo Soomaali ay ku dhinteen duruufaha nololeed iyo xaaladda ay la daaladhacayso markii laga soo gudbo culays kale ayaa iminka soo wajahay oo gurigii ay degneed ayaa laga saaray iminka ayadii caruurteeda waa dibad joog wax oo aan had dab ugu shidnaa ma haysto dhul meel aan seexnaayna ma laha meelahan aan jooga meeshii aan joogo waa ii jeedin inta wax ii soo dadaashaan aan rabnaa ma haysato qoys caawiya oo dhaqaale leh mar way qadaa marna way quudataa sida oo ay tahay ma aan kaligeed oo waxay haysataa laba caruura iminkana waa xaamilo oo da'dii dhalmada ayay ku dhowdahay uuraan leeyahay wax oo lacag oo dab ugu shitan ma haysto dabkoodana waa dansan yahay ehelkeedu wax ma haysto maskiin waa iyuk bab wax waasin yahay habeenka waa qadnaa habeenkuna waxa ay soo dhiibaa dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel ayay ka codsatay inay caawiyaan waxayna sidoo kale baaq u dirtay madaxda ugu sarreeya dalka Soomaaliya nuu soo gargaaran oo wax nuu soo taraan oo nuu soo dadaalaan rabnaa madaxweynaha dalka Soomaaliya wasaaraha inay nuu soo dadaalaan oo hadda soo gaaraan aan rabnaa wax oo aan had dab ugu shidnaa ma haysto dhul meel aan seexnaayna ma laha meelahan aan jooga markii laga soo gudbo allihii abuuray ma jirto cid kale oo ay ciirsanayso oo ay caawinaad ka sugayso marka laga reebo dadka Soomaaliyeed iyo qof walba samaha jecel oo doonaya in inantani uu caawiyo waa hooyadii ugu da'da yareed intaan arkayay qoys dhiban oo xaaladdu ay ku xun tahay Abdul Casriil Somali Cable magaalada Muqdisho